بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan dhammaantiinba kusoo dhawaada kulan kale iyo xeer kale iyo taxanaheennii xeerarka nolosha. Xeerka aynu kusoo qaadanayno kulankan waxaa la yidhaahdaa xeerka baahinta iyo daadejinta hantida ama dhaqaalaha. Ilaahay universe-kan iyo guud ahaan adduunkan markii uu sameeyey waxaynu nidhi xeerar buu u sameeyey hagaya oo haddii laga leexdo halis gelinaya jiritaankii ummadda iyo bulshada. dhaqaalaha iyo hantiduna waxay ka mid yihiin waxyaalaha ugu waaweyn ee jiritaanka bulshooyinka iyo ummadaha lafdhabarta u ah. Ilaahay wuxuu sharci ka dhigay oo waajib ka dhigay inana baray in hantida iyo dhaqaaluhu aanay ahaanin wax ku kooban dadka lacagta haysta ama waxa weeyaan dhaqaalaha badan haysta oo kaliya. Zakadana markuu sameeyay wuxuu ka dhigay means lagaga qaado dadka lacagta leh si loo gaarsiiyo maxay dadka aan hantida iyo dhaqaalaha badan lahaysan si loo daadashiyo oo loo baahiyo dhaqaalaha. Waa dhaqaaluhu hadduu meel ku baaho baa xeerkan iyo Ilaahay qaanuunkan inagu barayaa halis ummadeed iyo burbur inuu horseedi karo. likay laa takuuna duulatan bayna al-aghniyaa. Waa halis weyn in qof uu yidhaahdo sector kastaan ku jiray ama 4 qof 5 qof oo kale yidhaahdaan sector kastoo dhaqaalaha ku jiray oo kii bangiga ku joogay ku yidhaahdo aniga baabuurta soo dejinaya, aniga guryaha dhisaya, aniga dhulka ka ganacsanaya, aniga mobilada ka iibinaya, aniga electronics ka iibinaya, aniga dharka xiranaysa ka iibinaya, aniga halkaad seexanayso iyo hoteelkii noqonaya, aniga bixinaya shaahi iyo sharaabkii aad cabaysa ka iibinaya, aniga everything sector kasta aniga xaysiiskii isku sameynaya, aniga sector kasta galaya inuu yidhaahdo oo kiis gaarsiinta jooga yidhaahdo aniga telefoonkaad ku hadlaysay ku siinaya, telefoonkaas aniga wixii xaysiisii ogeysiisahay dhan ka shaqeynaya, aniga gurigii aniguna ku dhisaya, aniga leerkaagii maamulaya, aniga waxa weeyaan dhismihii iyo qaybihii wax laga dhisayo dhan galaya, aniga gaadiidkan u baahnaa iyo isu socodka dadku waxay u baahnaayeen ba galaya, aniga everything galaya inuu yidhaahdo oo kii bariiska Thailand ka keenay yidhaahdo ana bariiskii soo raraya oo markabkii leh oo xamaaligii dekada ka soo qaadaya oo baabuurkii leh oo hoteelkii waxa weeyaan lagu karinayo ama restaurantkii cuntada lagu karinayo aniga leh oo all the way kii ka iibinayay waxa weeyaan bariiska ku karinayna aniga ahaanay every sector macnaha qof waliba uu ku jiro halis weyn oo dhaqaale weyn. waxaana ka hor imanaysaa nidaamka caynkaas ah ugu shaqeynayaan waxa weeyaan nidaamkeena ganacsatada iyo dadkeena hantida haysay xeerkii Ilaahay dhaqaalaha iyo hantida uu dejiyay ee ahaayaan idinku dhex meeraysan. iyaguna waxay ka shaqeynayaan inuu iyaga iyo afartooda iyo 5 sector kale ay ku kala jiraan ay dhexdoodii una isku wax weeyaan riixriixaan oo lacagta iyaga ay dhex meeraysato aanay lacagtu soo gaarin ummadii kale iyo dadkii kale. haddii ay taasi dhacdana markaasi ay keenayso in wax weeyaan ay ummadda dhaqaalaheeda iyo hantideeda iyo amnigeeda guudba uu halis ku jiro. waa Ilaahay xeer ma soo dejiyo aan xikmad iyo wax weeyaan dan ummadda iyo mujtamaca ugu jirta aanay jirin. cidda isku dayda marka xeerarka inay la dagaalanto oo wax walba iyagu gacantooda ku qabsadaan markay waayaan dawlad iyo bodies wax weeyaan ku regulate gareeyo oo ku khasba inaanay wax kasta ka shaqeyn karin damiirkooduna uu siin waayo waxay keentaa markaasi ay taasi ay sabab u noqon doontaa in laba qaabba ay wax weeyaan nidaamkaas dhaqaale iyo ummadaasiba halis burbur ay wajahdo. midda koowaad halka shirkad ama halka company ama halka ganacsade ee intaasoo sector iyo intaasoo qaybood bulshada galay wuxuu burbur salaaso u saaran yahay haddii uu qofkaas oo kaliya uu burburo ama ganacsigiisaasi burburo ama wuxuu ku dhacaan in aanay hal ganacsiyo kaliya burburin ummadda qaybo badan oo ganacsigeedii dhaqaalaheedii uu hal mar burburi doono. midda labaad ee halista ahina wax weey markii in yaro kooban ay soo celceliso dhaqaalaha iyo hantida ay dadkii kale u diido inay la macaashaan oo la bariiseeyaan oo wax la cunaan oo hantidii la soo daadajin waayo in kuwaasi aanay daawanin 10 qof iyo 20 qof oo isu dhiidhiibaya hantidii iyo dhaqaalihii ummadda ay iyagu gacantooda ay ku dumiyaan oo nidaamka dhaqaale waxa weeyaan ay sabab noqdaan inay iyagu dumiyaan ay dhahaan waxa weeyaan marxaati ka noqon mayno 4 qof oo ganacsiga korkayga wax weeyaan inta ku isticmaalaan oo annaga lacagta naga qaateen xataa aan ogolaaneyn in wuxuun dadka wax lagaga soo celiyo oo dib wax weeyaan loo soo daadajiyo. likay laa takuuna duulatan bayna al-aghniyaa. waxay ay tahay inaan aad iyo aad aan u gaarsiino cid kasta oo wax weeyaan ganacsi iyo sectorada aynu ka hadlayno dhan ku jirta si markaas aan uga baaqsano burbur amni iyo mid dhaqaale oo ina soo food saara. xeerka Ilaahay
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أنس بدلين أنت أدمه جرنا إننا أقلانين إن عيد استراحة بدلة أما إننا كداونين ويعد بدلي كرتا ما جرتو بربر بالو غدا دعيا كلنك كان ku xigay intaan ku kulmi doonana dhamaantiin waxaan idinku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh